dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo fikradii Soomaaliland iska bixin jirtay ahayna qaran tahay oo u rogay ama muujiyay mas'ala qabiilo kale in ay tahay sida awdal state movement matalaysa ah maamul goboleed dhisano iyo aragtida daahirayaal iyo rag la midka ay matalayaan xildhibaanada hadda go'aanka keenay Soomaaliland wax la dhisano labada aragtiyood mid hore waxa hor yaalay mushkiladda midnimada iyo caasimadaha hareeraha ka xiga gobolka awdal dastuurka Soomaaliland 2002 la sameeyay iyo qadiyadda Soomaaliland ee sanad lagu dul dhisay iyo qaabka loo maamulo dakhliga dhaqaalaha iyo kheyraadka iyo infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sida awoodda loo qaybiyay iyo sida loo qaybiyay maxaan ku raahdaa matalaadda waxaas oo dhan oo mataqaana package ayaa qadiyadda gobolka awdal ka taagan noqday lagama wada hadal awood qaybsi lagama wada hadal kheyraad qaybsi lagama wada hadal siyaasadda sidii yani si miisaaman loogu maamul lahaa si reereed oo sidii 390 reer oo wada fadhiisteen waa laga raray oo maxaa 2000 baa laga raray 2001 si dimuqraadi oo dhameystiran oo qof iyo cod iyo maxaan ku raahdaa axsaab furan iyo nin walo siyaasadda taneynaya inuu barnaamijka suuqa la yimaadana lagama dhigin albaabka la xiro 3 baa laga dhigay وافي اب وابلكيشن عصري او ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sad sahal efc plus xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid وافي اب kala soo deg app store-ka ama play store-ka وافي isku xiraha qaran joogta iyo qumba joogta isla madaxda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ka soo jeeda qaybta ka ah tan iyo xilligaas madaxweyne ku xigeen ayaa ama gobolkaas ay helaan miyaan cod ku lahayn geediga iyo codka dadka uu ka soo jeeda ama deegaankaas uu magac ahaan u matalo in uu golaha hor keeno oo uu dhaxo oo dadkaysan go'aankan gaareen barnaamijyadaas socdo bal halka maxaa u diiday marka madaxweyne ku xigeenka hadda jooga iyo kuwii horeba ragga Soomaaliland madaxweyne ku xigeenada ka noqday waa sidii madaxda shan yihiin ayaguna shan yihiin shan nin baa madaxweyne ku xigeenka ku guuleystay saddex nin oo kamid ah waxa ka soo jeedin gobolka Awdal oo Cabdiraxmaan aw Cali daahirayaal ka hayno markii dambe madaxweyne u dalcaan hadda hadaleyni iyo Cabdiraxmaan Siilic oo hadda madaxweyne ku xigeena shantaan nin ayaa horta booskaas shantaan nin booska fadhiya saddex kamid ah ayaa gobolka Awdal ka soo jeeda reerahaas deegaanada ka soo jeeda su'aashana waa su'aal soo noqnoqota aniga waxaan isiraahdaa inta moogtahay iscanaanashada siyaasiyiinta Soomaalida iyo canaanashada reeruhu way iska badan tahay laakiin aniga si u fahmi karnaa yani sidii qof wax daraasinayo kala ama falanqeynaya aad ku eegno waxa weeyaan horta nidaamka Soomaaliland soo shaqeeyay in fahano ayaa ka horeysa Soomaaliland ama beelaha galbeedka ee hadda mushkiladda yani kiiskan qaraarkan baarlamaanka iyo waxyaan ka soo baxeen maxaan kula gadi bursiga la dhaho ahaw ama beelaha yani Soomaaliland loo tiriyo saaq ahaw kursiga aan madaxweynaha hayne macna ma sameeyo saameynna ma laha kursiga qura sababta doorashada madaxweynuhu ay Soomaaliland mar walba halis u tahay yani maanta dagaal sokeeya loo geli gaaray yani maxaan kula doorashada oo maxaan ku raahdaa carqaladooday waa hadda doorashada taagan tantii ka horeysay Muuse Biixi ku soo guuleystay inay doorashadaasi dhacdo magaalada Hargeysa waxa ka dhacay wax loo bixiyay qaraxyada shaanida oo nabadda khalkhaliye tii ka horeysay Axmed Sinaayo Rayaale iyo Axmed Sinaayo ku tartamayeen amaanka wadooyinka waliba gaar ahaan marka Hargeysa galbeed looga baxo iyo Burcaba masaa'il amniba ka dhacay marka doorashada Soomaaliland mar walba mas'ala amni ay kicisaa waa halka sababtuna waa in kursiga madaxweynuhu yahay kursiga qura ee waxna go'aamiya waxna hagaajiya waxna xumeeya madaxweyne ku xigeen iyo wax ka hooseeyo dhan awood horta mala dastuurka Soomaaliland baa cadeynaya in waxa qura awood u leeyahay tahay in madaxweynaha ku simo wixii madaxweynuhu darto u qabto iyo inuu booska madaxweynaha buuxiyo hadii madaxweynuhu dhinto marka hadiidaasi waaba moogtahay hadii ay ku xiran tahay oo hadii qadar timaado ilaahay kama dhigo moogtahay geeri lama tamaniyo moogta labada awood u leeyahay waxa weeyaan inuu ku sime si ahaado iyo inuu shaqada madaxweynuhu darsado oo qabsado wasiirada la magacaabay aad iyo aad taas waxay ku xiran tahay xirfadda siyaasadeed ee qofka xilka jooga moogtahay oo qasab maaha wax dastuurka ku qoran in lagu shaqeeyo xirfadda siyaasadeed natiijadeeda baan haynaa haddii raggaasi si fiican u shaqeyn lahaayeen deegaanadooda cabashadani kama timaadeen laakiin si guudba Soomaaliland saddex xisbi baa yani siyaasadda Soomaaliland waxay xiran tahay saddex xisbi u xiran tahay
يعني dal furan oo masalan nin walba intuu yani nin walba yaana odhan xataa majmuuca kasta dada 5 nin 6 nin 7 nin 20 nin dhalinyaro rag weyn inta urursadaan urur siyaasadeed iyo naadi siyaasadeed iyo xisbi inta sameeyaan ay waxa iyagu u arkaan xal iyo aragti u arkaan dalkooda iyo dadkooda inay soo bandhigi karaan maaha waa dal maxaan ku lagu qasbay inuu saddex xisbi la daba galo cid kalena aan siyaasadda geli karin dadkan waa lagu xiraa in siyaasadda ay aad uga shaqeeyaan ama aad uga hadlaan ama wax abaabulaan marka saddexda xisbina waxay keenaysaa nidaamka xisbiyaduna aanu ahayn nidaam xisbiyo la wada leeyahay oo la wada maal gashado oo yani qaanuuniya oo uu yahay gudoomiyaha xisbiga marka dalkiina waa saddex xisbiyadina gudoomiyaha xisbiga marka cid kale oo ka soo hadhay gudoomiyaha xisbiga oo markuu xilka tagana madaxweynaha noqonaya oo horta wax laga weydiiyo Somaliland khayr iyo shar ma jirto Canada waxaa ka jira kacdoon ay sameeyeen dadka ka soo jeeda gobolka Awdal waxaana ay ku dhawaaqeen Awdal State inagoo og in hore magacaas u jiray adina aad ka dhawaajisay in xilli hore uu soo bilowday laakiin hadda aad loo hurinayo ama kacdoonkaas la sameeyay muxuu soo kordhinaa saad sheegtay horta shir baa ka dhacay dalka Canada ay qurbo joog iyo aqoon-yahano iyo madax dhaqameedba ay ku lug lahaayeen rag badan oo kamid ah mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaanka Awdal iyo Gabiley ka soo jeeda ay qayb ka ahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi baa kamid ahaa dadka shirka qayb galay marka shir siyaasadeed dhaqan isku jira oo ay ka tashi oo kala ayuu ahaa natiijada ka soo baxdayna waxay in ururka lagu dhawaaqo Awdal State Movement oo saan hore kuugu soo sheegay fikradda ah inuu gobolada yani degmada Gabiley iyo wixii galbeed ka xiga inay maamul goboleed Soomaaliya noqdaan oo Awdal State loo bixiyay oo maxaan ku dhawaa hore soo jirtay waxyaabo la yaab kale waxa kamid ah 1991 markii ay Soomaaliya duntay dagaalada sokeeye baaheen yani markii hore waa socdeen dagaalada sokeeye laakiin meel walba ay gaareen waxa yimid dalka UNISOM atimid ciidamo iyo wax keentay waxyaabaha marka waa aad loo daraasin jiray aad moogtahay loo baari jiray waxa kamid ah sida Soomaaliya maamul cusub ama dawlad cusub looga dhisi karaa talooyinka la soo jeediyay waxa kamid ahayd in deegaanada ay deegaan beelaha Isaaqa Gadabursi iyo Ciise iyo dadka kale Gabooyi iyo Soomaalida kale area degtoodan in dawlad laga dhigo maamul goboleed Awdal State loo bixiyo yani intaan anu waxa akhriyaa ma arkay halka ugu horeysay magacaas ka yimid in ahayd inta maanta Somaliland hay soo dhan oo beelahaasi dir waqooyi loo yaqaano hadii koonfurta la joogo maxaan ku raahdaa maamul goboleed looga dhigo markan la asaasay Awdal State ee daahirayaal Soomaaliya madaxweynaha ka yahay ee Soomaaliya federaalka qaadanaysa Soomaaliya waxa federaalka qaadatay 2004 daahirayaal madaxweynaha ka ahaa Somaliland 2006 buu markaa fikradda ah in Awdal State maamul goboleed laga dhigay soo korodhay 2007 soo madaxweynaha la asaasay marka dhowr jeer ayaa taariikhda waxa lagu noqonayaa dhowr jeer ba isku dayga la sameeyay ururana loo sameeyay waa garta haddana waa markii saddexaad mise afraad urur loo sameeyay Awdal State Movement in fikraddaasi waaqac laga dhigo marka horta xagga fikradahan xaggaas ka jirta maxaa hadda ku soo beegay isbedelada degdeg oo socda siyaasadda Soomaalida ayaan isleeyahay waa soo kordhisay iyo in dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo fikraddii Somaliland iska bixin jirtay ahayna qaran tahay oo u rogay ama muujiyay mas'ala qabiilo kale in ay tahay labadaas soo kordhiyo si cad yani dadka siyaasadda Soomaaliya daraasay ay og yihiin in hoggaanka siyaasadda mar walba qabiil wax ku dhiso laakiin dadweynuhu waxay xisaabtamayeen oo cashuurta ku bixiyaan oo ay mataqaana ay ku xisaabtamaan inuu dawlad leeyahay marka taasina waa soo kordhay su'aasha ah maxay saameyn dhalin kartaa ama maxay keeni kartaa horta ka fikrad ahaan waa fikradda ugu shacbiyada badan la deegaanada dadkaas ka soo jeedaan laakiin weli wax ficila oo fulina oo maamula may keenin ciladuna waxa weeyaan dadku waa laba moogta waa hoggaan iyo shacab hoggaanka dhaqan iyo siyaasadeed iyo hantida yani ganacsatada iyo culimada iyo dadka bulshada haga ee deegaanada Awdal iyo Gabiley iyo dhanka ka xiga ka soo jeeda marnaba isku mid raacin fikraddaasi inay wada xambaaraan oo ay dhabarka ay u ritaan haddana welitii in mashruucaasi loo midoobo waxba iska bedelin qodob labaad baa iyadana fulinteeda qayb ka ah oo dabcan haddii Awdal State baa la dhisayaa la yiraahdo Somaliland raali kama noqonayso laakiin Somaliland waxa ka sii muhiimsan labada dawladood ee dariska la xuduudda la wadaaga Awdal Djibouti iyo Ethiopia oo la dawlad deegaanka Soomaalida iyaga laftirkoodu fikraddaas wax ka qabaan cabsi ama wulul ay ka qabaan
marka waa fikrad aad shacbiyadu haysata laakiin fulin aan lahayn. Hargeysa, Jigjiga iyo Jabuutina ay maxaan ku dhahdaa si isku mid ah ay uga soo wada horjeedaan. waa tahay aan kusoo laabano qaraarkii baarlamaanka waa la ansixiyey yaa iskale fulintiisa. sida aan hadalka bilowgii ku bilaabay go'aan baarlamaan qasab maaha in la fuliyo oo maxaan ku dhahaa baarlamaanku dhowr nooc buu shaqeeyaa caadi ahaan inuu qofka mas'uulka la xisaabtamo uu yeedho su'aal weydiiyo dadweynaha tuso maxaan ku dhahaa ansixinta madaxda iyo casilaadooda mas'uuliyad ama maxaa la dhahaa maamuska xayuubintooda qaabka uu shaqeeyaa. qaab kale wuxuu shaqeeyaa inuu xeerar dejiyo oo shalay yani bayaanka marka la soo go'aanka marka la soo saaray waxa ku xigay xeerka doorashooyinka isku sidkan madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ku xigo xeer ahaan loo soo saaray. marka xeerna soo saara waxa soo haray baaritaan inuu baarlamaan sameeyo oo intuu guddi u saaro arrin la soo baaro. waxa ku xigay inuu arrinka intuu dirso go'aan ka soo saaro go'aan gole leedahay. go'aanka gole waxa weeyaan qiimaha uu leeyahay qura waxa weeyaan ixtiraaf siyaasi ah. goluhu inuu ictiraafo in mushkilad halka ka jirto siyaasadeed maaliyadeed dhaqaale maxay maamul xumo yani arrinka uu ka hadlayo inuu ictiraafo ay go'aan ku soo kordhiyaa. sharcina ka dhigo wixii dood ahaan inuu sharci ka dhigo ama yani rasmi ka dhigo. laakiin waxay ku qasban tahay laanta fulintu hada xagga sharciga ka eegno ama madaxtooyada ama wasaaradda dhexe ay ku qasban tahay in fuliso ama wax sharci oo garsoorka inta loo gudbiyo lagu xisaabtamayo dadka lagu kala saarayo ma aha oo nidaamka mas'alada la yiraahdo go'aanka ayaa saa u dhisan. go'aanku bayaan kale uu dhigay yani golaha Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliland baa isku raacay arrintaas inay jirto xalkeeguna sida ay sidaa yahay. marka qiimaha uu leeyahay waxa weeyaan dad badan oo mataqaana deegaanada ka soo jeeda ku doodi jiray waxay Soomaaliland ka tabanina qayb kamid ah oo waliba qayb mataqaana arrimaha dastuurkii waxa la xiriiray arrimaha dhaqaalaha iyo la xiriiray iyo mashaariic iyo arrimaha la xiriira yani awoodda xukuumadda fulinta ay ku leeyihiin iyo garsoorka arrimaha soo si qoraal loo sheegay ayuu qiray inay cilad jirta tahay. xalintoodana talooyin qaarna talooyin ka soo jeediyay qaarna wuxuu dhahay hal hagaajiyo. ahamiyadiisu markaa inuu fuli doono iyo in waaqac wax ka bedeli doono iyo inuu bari isbedel dhacayo maaha. sidoo kalena maaha inuu dadkii cabanaya qancinayo oo de hadal cid kuma qanacdo ficilba dadka shacabkii markay arkaan bay qancaan moogta. laakiin aniga aragtideeda ahamiyadda uu leeyahay waxa weeyaan inuu war badan oo siyaasadeed iyo dood badan uu ka dhigay qaraar marjiciya oo loo noqon karo loo odhan karo horta koow waxa establish waxa la isku raacay inay ciladani jirto. sidee loo xalinaa sidii markii dhawadan kuu sheegay talada daahirayaale ee ah moogtay Soomaaliland gudaheega laga xaliyo la raaca mise talada maxaan ku rahdaa Awdal State Movement yaa in maamul goboleed Soomaaliland dhisa la raaca ma talo cusub la raaca yani fulinta maxaan jeedaa xalinta waa mas'alo kale laakiin waa qiraal weey. waa tahay hadiiba ay dhici weyso soo jeedintan baarlamaanka la meelmariyay xildhibaanadii ka soo jeeda gobolka Awdal ay meelmariyeen hadiiba ay dhici weyso in sidii loo qorsheeyay uu u socon waayay maxaa dhici kara gobolka Awdal siyaasiyiintooda iyo dadkooda ay go'aan ku gaari keenaan. horta waxa qaybka lama sheegi karo laakiin la qiyaasi karaa. maxaa dhici kara hadii aan isweydiino horta laba su'aalood baa markiiba ka dhashay imka markii dhaweyd aad weydiinaysay ilaan markii go'aan la soo saaray waxa ka dambeeya qorshe ka si fiican ma ku fahmay hadii go'aankan la ansixin waayo maxaa kordhi kara balan biigaas aan u degsan adiyaad aniga waxaan isleeyahay horena saan u sheegay laba aragtiyood oo deegaankaas ka jiray. aragtida Awdal State Movement matalaysa ah maamul goboleed dhisano iyo aragtida daahirayaale iyo rag la midka ay matalayaan xildhibaanada hadda go'aanka keenay Soomaaliland wax la dhisano. labada aragtiyood mid hore waxaan nidhi waxa hor yaalay mushkiladda midnimada iyo caasimadaha hareeraha ka xiga gobolka Awdal raalimo ka yihiin ama intee leeg bay ka howlgalayaan inay ka hortagaan. cagsiga dadka la raayiga ah xildhibaanada iyo Axmed Ismaaciil Samatar iyo ururka Hilaac iyo daahirayaale kaahin yani eliidka mataqaana deegaanadaas siyaasadda Soomaaliland ku jira iyaga waxa dhex yaala waxa hor yaala su'aasha ah qaraar baa soo baxay si aad ugu ololeynaysaan ama uga shaqeynaysaan inaad horta ficil u bedeshaan laana cidda mas'uuliyaddu saaran tahay waa cidda siyaasadda deegaanadaas ugu jirta marka hore intaan cid kale baarlamaanka Soomaaliya cid kale iyo madaxtooyada Soomaaliland cid bal eedin waa eliidka siyaasadda xildhibaanada madax leh siyaasiyiin leh madaxweyne ku xigeen leh madaxweyne hore leh ugu jira maxaan ku raarto siyaasadda ama mugtadaba ka ama dhabyana ka ahaan waa qodob kale waxa weeye dastuurka Soomaaliland hadii la furo
maxaa idinka ajenda ah horta rabtaan in leedii aad kaga doodaan yani in la furo Soomaaliya dhan ba loo furi moogta gobolka Awdal qura loo furi maayo ciladaha dastuurka ka jiraan Soomaaliya dhan bay haystaan xildhibaanada hadda keenay talada iyo siyaasiyiinta kale taageersanaya okay that is the way yani halkaas marayna maxaa idinka ajenda oo dastuurka ka rabtaan la furiyo maxaad ka rabtaan haddii la furo ayaa iyagan hortaala labo saddex waxa hortaala aragtida aad ka rabtaan marka meesha la keeno aragtidaasi sidee dadkiina uga dhaadhicinaysaa yani waa in wixii qadmo moogta haddii maanta moogtahay yani waxa maamaadu waxay moogtahay qofka 14 quraanka aqaana ku yiraahdo ka akhrisan maysaa koras haddana dadkiina ay ku qancin karin waana gaabis moogta xaggooda ka jira halka ay wadaan ina halka aragti ka keenaan iyo ina mowqifka marka laga tago anaga Soomaaliland wax ku hagaajinayna aragtida ah moogta sida wax looga hagaajinaa masalada awood qaybsiga maxaa laga yeelaa masalada khayr qaybsiga maxaa laga yeelaa masalada maamulka maxaa laga yeelaa yani masalan gobolka Awdal hadda soo dhisan yahay ba maamul aad u rabtaan ma waxaad u rabtaan in si beelad sidii 93 ahad beelad wax loo qaybsado maxaad rabtaan waa su'aasha horta alla xildhibaanada iyo inta la midka ah maxaa ka iman kara qaraarka kadib horta xagga shacbiga wax badan ma bedeli doono oo dadku ficil bay ku qanacaan go'aan kuma qanacaan xaaladda soo taraysa ee ah in dadku aad uga niyad jabsan yihiin siyaasiyiinta guud iyo dibadba ay aad uga niyad jabsan yihiin kartida ay u leeyihiin wax qabtaan ay aad uga niyad jabsan yihiin kartida ay u leeyihiin matalaan dadka oo codkooga muujiyaan oo ay dareenkooga muujiyaan ay aad u kordhaysa haddii arrimahan ay xalismi waayaan yani waxa wada saxan lagu xalin waaya wada qaldan ku xalismaa macni mashaakilka laga hortagi waaya cilado waaweyn ay dhalaan imika waxa arkaynay lascaanood November mudaharaadyo ka dhacay laakiin January dagaal ba ka dhacay waxa u dhaxeeyana waa 3 bilood maalintii mudaharaadku dhacay halka waxa dadka xabadaha laga daayo mudaharaadaya wada hadal siyaasadeed la galo maalinkii dambena wuxuu noqday halku war xabadaha la joojiyo oo mataqaana ciidamada halka la qaado bilaana u dhaxeeya waxa markaa sida saxda loo xalin waayo ee jidka mataqaana toosan loo mari waayo cilado waaweyn oo marka dambe moogtahay maxaa halka nagu gaarsiiyay ayaa ka dhasha waxa hadda ay muuqdo aniga waxa dhici kara isleeyahay ma jiro laakiin waa qadiyad iyo culays iyo mushkilad soo kobcaysa haddana meel aad u kulul maraysa waliba gaar ahaan dhalinyarta dadka mustaqbalka kale nolosha meel culus ka maraysa dadka dareemaya caqabadaha iyo mashaakilka dareemaya dadka siyaasadda wacyiga u leh maxaan ku aad bi frustrated u yihiin haddii labada dhinac midkoodna xal keeni waayo yani dawladda iyo siyaasiyiintu midkoodna wax xal keeni waayo waxaan ka walwal qabnaa inay mashaakil ka weyn dhasho ilaahayna kama dhigo waa tahay mala dhihi karaa reer Awdal waxay u budo tumanayaan in maamul gaar ah ay noqdaan aniga aragtidayda saan horena u sheegay fikradda ayna maamul Awdal state la dhiso waa fikradda siyaasadeed ugu shacbiyada badan leh gobolka Awdal iyo deegaanada reeraha bulshada deegaan maalinna dooda siyaasadeed ku saabsan ma noqon ma sax ba ma qalad ba waxa noqotay laakiin mar walba dooda siyaasadeed hortaagna waxaad ma fuli kartaa wax amaliya ma tahay xataa waxay ahayd wax qori loo qaadi karo oo yani xaaladda imika deegaanka ku sugan yahay iyo xaaladda la rabo in la geeyo wax dagaal loo ridi karo ma tahay saas dadku way xisaabtamayeen elite-kuna saas way xisaabtamayeen hoggaanka dhaqankuna saas way xisaabtamayeen marnaba ma ahayn moogtahay masaladu waa qaldan tahay lagu xalinayo masaladu waxa dadku waa fikrad sax ah waa fikrad quman laakiin yani waxa ka dhalan kara wax aan diyaar u nahay ma yihiin wax aan loo qobi karo ma yihiin wax fuli karta ma yihiin wax practicality-ga mar walba fulinta doodu ahayd marka masaladaas aniga ra'yi ahaan shacbiyadeeda waa leedahay si ay masaladaas u xalisantana waa in masaladan kale mataqaana Soomaaliland sidii mataqaana shacaarka Axmed Ismaaciil ay u qaateen Soomaaliland la wada leeyahay muku muuqata in loo wada dhan yahay fikirkaasi Awdal state marka aad fiiriso siyaasiyiinta dadka ka dhawaajisay daahirayaal madaxweyne ku xigeenka hadda jooga iyo siyaasiyiin kale oo kale qabi kara in muku muuqata in ay baash isku dheelitiran tahay oo hal rabitaan uu jira horta wixii aan arkayna ayaan falanqaynaa hadda waxa arkayna waxa weeyaan hoggaanka siyaasadda iyo hoggaanka ganacsiga iyo hoggaanka culimada iyo hoggaanka dhaqanku fikradda ah inuu maamul goboleed la dhiso oo Awdal state la yiraahdo oo hawsha la galo ma taageersana
لأنه هذه تاجرسين وموجين لهاين موقتها فعل بموجين لهاين هذا أيكون موجين لهاين أنا فلنقين تيدا يفهم كي وحويان سببت أنا وتاجرسين وحويان فلين تيدا عادك أي نوع تاجرسين فكرة عقلتهم وما مسؤول كذا وأنا مشكلة دي لا واجد ده ريال كاين مدحينها دجان كجرت وتقضية ضمحتها waxaan isleeyahay horta mushkilad weyn oo Soomaaliya dhan haysata ayaa jirta mugti dawlad xumo iyo dhaqaale xumo iyo nolosha faqriga rafaad kale marka horta ummadan Soomaalida geeska Afrika degan dawladda Soomaaliya maxaan ku maamul goboleedyo kala duwan Soomaaliya oo waa isku kiis horta waa isku mushkilad haluu kala duwan meelaha qaar kood waxa laga yaabaa abni xumo in aad u hayso meelaha qaar kood dhaqaale xumo in aad u hayso marka horta qadiyad guud oo dadkani ay qabaan baa jirta oo moogtahay wax cid aad gooni uga oo mushkilad moogta ma jirto laakiin marka deegaanada la sii kala qaado ee maamulada la sii kala qaadana deegaan walba mashaakil gooniya ayaa ka jira markaas aan hore u soo sharaxay gabiil joogso ilaa wax dhanka ka xiga marka hore mataqaana Soomaaliland la asaasay ahad beeladka lagu asaasay iyo markuu Maxamed Xaaji Ibraahim cigal dastuurka sameynay farqi baa u dhaxeeyay marka qadiyad waxay noqotay dastuurka Soomaaliland 2002 la sameeyay iyo qadiyada Soomaaliland ee sanam lagu dul dhisay iyo qaabka loo maamulo dakhliga dhaqaalaha iyo kheyraadka iyo infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sida awoodda loo qaybiyay iyo sida loo qaybiyay maxaan ku raahdaa matalaada waxaas oo dhan oo mataqaana package ayaa qadiyada gobolka Awdal ka taagan noqday waana waxay soo taro midba maalin ay ku biireysay xal u baahan yahay halka ugu haboon aniga waxaan isleeyahay horta dadku markay wada hadlaan bay isfahmaan markay wada hadal bal isku fahmaa marka anigu waxaan isleeyahay talada ugu muhiimsan waxaan soo jeedin lahaa elite-ka gobolka Awdal ka soo jeeda qurbo joog qolqol joog Soomaaliland taageersan ka soo horjeeda waxay doontaa hata laakiin in ay intaan cid kale eersan ama Soomaaliland ka caban ama cid kale ka caban in ay iyagu tala ka yeeshaan maxay rabaan yani maxay Soomaaliland ka rabaan maxay Soomaali ka rabaan maxay adduunka ka rabaan war isku beegan oo ay u dhan oo tala gudahooda ka timidaya ayaa iyaga looga fadhiya waxaas un baan dadka kale go'aan ku gaari karaan oo ama waa taageersanaa ama ka soo horjeedna inta mas'aladu ay tahay khilaaf gudahooda ka taagan cid walbana moogtahay Hargeysa hadii maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay bay taageeri Jigjiga hadii maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay bay taageeri Jabuuti hadii maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay ay taageeri يعني dadkuna waa ku qaybsamay marka taladu iyaga taala waxa la oran jiray moogta kubaddu garoonkii uga taala bartanka ka taala gabagabadii barnaamijka soo gaarnay waxaan rabaa hal su'aal oo aan u arkay inay muhiim tahay ayaan ku weydiinayaa awdal cabasha ay qabtaa saad ka dhawaajisay sool sanaag sool waa maamul ay dhisatay oo gooni ay u baxday maxay tahay cabashadan isdaba taagan horta maxaan ku raahdaa sidii dawladda Soomaaliya u burburtay dagaalada sokeeye u dilaaceen Soomaali meeshii loogu rajada weynaa Somaliland bay nabadda ugu horeysay maamul dhiska ugu horeysay dawladnimo la yagaleelo oo moogtahay at least lagaga soo baxo cid walba waxay doontaa ka sheegto laakiin lagaga soo baxo qaxi iyo dagaaladii sokeeye iyo lagaga soo baxo Soomaaliya oo dhan ay ma jiranaysa oo xataa shankaroon waa tii lagu naanaysay marka hadda maanta suuraddu way isbedeshay 8 bilood dagaal ka socday gobolka Sool waxaan kula cabasha ka horeysay doorashadiina soo dhaaftay Somaliland gobolka yani sanaad bari oo deegaanada maxaan ku raahdaa beesha warsigeli degto aslan lagama wacdeyno qayba processka lagama hayn oo ay ka guureen hadda waa maanta waxaan ka sheekeynay Galbursi iyo reer galbeed qadiyadoodii mushkiladda meesha ka taagan shalay oo dambeysay yani jabhad baa fadhida buurta gacan libaax oo ciidanka Soomaaliya halkaas ku laayeen oo dhimasho dhaawac keentay oo mushkilad siyaasadeed mudaharaadyo ka horreeyay Hargeysa iyo Berbera iyo maxaan ku Burco iyo Ceergaabo ka dhacay oo dad ku dhinteen oo cabasho siyaasadeed ku salaysnaa Cabdullaahi Dalawar iyo taageerayaashiisa iyo Turki oo beesha Arab iyo dhankaasi tabasho weyn oo tan Axmed Ismaaciil Samatar iyo deegaankiisa la mid iyo reerkiisa la mid ay qabaan yani Hargeysa gudaheega waxaas weeye moogtay oo Burco gudaheega weeye oo Ceergaabo gudaheega weeye marka su'aasha waa yani suuraddu say isku bedeshay meel Soomaaliya oo dhan ma jiranayso iyo maanta meel yani wada booga oo mashaakil siyaasadeed walba ka taagan yihiin wax moogtahay lama hadiyana maaha maxaa sababay hadii la yiraahdo saacado iyo maalmo laga sheekeyn karaa
oo taariikh baa laga eegi oo qadiyad walba gooni baa loo eegi laakiin anigu waxaan isleeyahay waxa fundamentala oo senska ah waa laba shay mid waxa weeyaan waxyaabaha lagu dul dhisay nidaamka siyaasadda xeerasha iyo dastuurada iyo qawaaniinta midna waxa weeyaan hoggaanka siyaasadeed kolba waxa gacanta ku haya ee jihaynaya hadday labaduba hagaagaan bulshooyinku waa degaan oo istiqraar oo dhaqaale iyo waxba laga shaqeeya hadday labaduba xumaadaanna waa la isla raftaa mararka qaarna ma ogtahay nidaamka kaa xun laakiin hoggaanka kuu fiicanoo hoggaanka yara dhadhaya marna hoggaanka kaa xun laakiin nidaamka kuu fiicanoo ma ogtahay xeerasha iyo institutionadii hay'adaha wax ka qabta isdhaafkaasaa jira Somaliland maadaama dagaal sokeeye iyo degdeg iyo qax iyo wax badan laga soo noqonayo marnaba sees yani nidaamsan laguma dhisin lagama wada hadal awood qaybsi lagama wada hadal kheyraad qaybsi lagama wada hadal siyaasadda sidii yani si miisaaman loogu maamuli lahaa si reereed oo sidii 390 reer u wada fadhiisteen waa laga raray oo maxaa 2000 baa laga raray 2001 si dimuqraadi oo dhameystiran oo qof iyo cod iyo maxaan ku raada axsaab furan iyo nin walo siyaasadda taneynaya inuu barnaamijka suuqa la yimaadana lagama dhigin albaabka waa la xiro 3 baa laga dhigay moogta si parliamentariyo dadka oo dhan inta baarlamaanka dadku keensadaan matalay doodooda baarlamaanka dhacday lagama dhigin awoodda madaxtooyada ayaa la geeyay garsoorkii xataa xakameyn la madaxtooyada ku hoos jira baarlamaanka waa bila awood oo waxa ugu yar moogtahay waxa ugu yar miisaaniyadda hadduu baarlamaanka Somaliland yani miisaaniyadda diido xukuumadda Somaliland kuma qasbana inay miisaaniyadda soo hagaajiso tii sanadkii hore ku shaqeyn kartaa waana sharci xeerka qoraay marka cilad weyn baa ka jirta maxaan ku dhahdaa masalada asaaska Somaliland ku dhisan tahay maxaan ku dhahdaa ii sheeg xeerasha dastuurka ah oo xagga awoodda qaybinteeda kheyraadka qaybintiisa siyaasadda maamulideeda maxaan ku axsaabta laftirkeeda xeerka axsaabtu in axsaabta ka dhigo wax la wada leeyahay oo dadku maxaan ku dhahdaa jeebkooda ka maalgeliyaan hadda axsaabta Somaliland ka jirta waxa weeyaan waa wax dhinku jeebkiisa ka maalgeliyo ninna cid kama aqbalayo jeebkiisa ka maalgeliyo in la yeesho marka waxa soo dhan oo marka horeba ciladaas oo intii madax joogtay Somaliland ka jiray ayaa waxa ku biiray hoggaan siyaasadeed oo guracan oo wax walba cunfi kaga jawaabaya wax walba ku jiqsi iyo loo joojin maayo iyo ku adkee kaga jawaabaya intii awood u urursanayd iyo intii mataqaana yani marka hore dastuurka Soomaaliya wax loo dhisay shaar madaxweynaha leg Musabixi Cabdi markuu yimidina shaarkii uu kala dilaaciyay marka meel kasta oo yani halka dadka madaxda hore intay u garaabaan afka u macaaneeyaan madaxa u salaaxaan waxoogaa madaxda la yara laalusho reeraha la yara kala farsameeyo dadka niyadda loo dejiyo isagu wuxuu kaga dhabeeyay inuu u dowladeeyo dadkuna moogtahay marka hore meesha nabad baa lagu hayay laguma hayn cadaaladna laguma hayn sinaana laguma hayn matalaad siyaasadeedna laguma hayn shacab weynuna dhaqaale iyo nolol iyo kheyraad iyo moogtahay waxay noloshooda ku maareeyaan kuma hayn tiina haddii ay mataqaana cadaadis iyo ku adkeyn iyo mataqaana kadeed siyaasadeed ka soo kordhay yani su'aasha meesha imanaysa waxa weeyaan sababta dadku u dulqaataan maxay tahay cagsigeeda awoodii dowladeed oo la isticmaalay si foolxun loo isticmaalay loo xal in la sameeyo aadiya laakiin waxaa jirta qadiyad guud oo Somaliland oo dhan oo ah madax banaani soo ma dhaawacayso wallahi dadku waxyaabo badan bay isku qaadaan waxay isku qaadaan maxaan ku raahdaa masalada in Soomaaliya kale laga madax banaanaado reer waqooyi oo dhan oo dhulka Ingiriiska gumeystay oo dhan oo dhulkii 16ka aan ma jecleen la isku taariifiyay moogta dadkii la gumeystay laakiin dadkii xorriyadda qaatay 16 June oo dhan masalada Soomaaliya laga go'aa wax meel u yaala ma ahayn qayb kamid ah bulshadaas oo maxaan ku raahdaa ayaa ay qadiyad ahayd dadka kalena maxaan ku raahdaa yani umay arkeen arin ay tahay in hadda ka dagaalamaan oo yani masalada dhimashiin nolol umay arkeen laakiin dhaqan xumada siyaasadeed Musabixi baa keentay inay u rogto masalada dhimasho iyo nololeed dagaalkan arkaynay baa ka dhacay sool haddana moogtahay qof baa halku joogo ka qiimeynaya maanta waxa la taagan yahay nabadda hala dhowro iyaanay dagaalo kale ka dilaacin oo moogtahay heshiiskan imika mataqaana beelaha beesha warjacla soo jeedisay fikradu ka duulaya waxa weeyaan bal xabada halka ka dilaacay rabti hala daweeyo yani xal lagu qasbay in hala sameeyo ay ahayd marka hadda nabadda ayaaba ka horeysa tii 90kii la isku wacdinay ayaa 2003
madax banaani laga hadlo nabadda Somaliland iyo dadkooda oo isku duubni laga shaqeeya ka horeysa aad iyo aad gabagabadii barnaamijkaas soo gaarnay maxaad ilowda aslada ugu dari kartaa bini'aadamku wax walba waxaa sheegi karaan waxaan is leeyahay meelo kala duwan baad ku sheegtid waad sheegtay qodobadii khusiyay masaladaasi hadda waxaa yani laga dhugsugaa waxa weeye qof walba wax uu shaaric la yimid awdal state movement wax shaaric la timid waxaan rabnaa inaan sameeyno maamul goboleed xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mataqaana deegaankaasi baarlamaanka Soomaaliland ku jiraan wax shaaric la yimaadeen Soomaaliland gudaheega ayaan ka xalinaynaa Axmed Ismaaciil Samatar iyo ururka laacna wax shaaric la yimaadeen xisbi baan dhisaynaa oo madaxtinimo tartamayna nin walba wuxuu shaaric la yimid inuu muujiyo qiimaha ku fadhiyo iyo sida uu fulin karo iyo khayrka uu soo kordhinayo sharka uu ka hortagayo ay isaga saaran aad u mahadsantahay Cabdullaahi Raage falanqeeye siyaasadeed barnaamijka xogsida ayuu igala qayb galayay inta badan aan ka wareysanaya arrimaha gobolka Oodal iyo golaha wakiilada qaraarkii dhawaan ay keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waan ku mahadcelinayaa tan iyo kulan dambe nabad iyo warsan mahadsanid kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet